السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم داوديال كلنتي وعنا وناكسن كسر هذا برنامجك هوينك يقويسك وتضباطك بمرجورها وكلات كداوتان شاشة مقدشة كيبل تي في قويسك هوينك يا نالا بينك وسوق بينا موضوعية كلا دوان ولا حرير قويسك هوينك الصوماليات إنه هاد بدن كإرنا تضباط كان برنامجك قويسك هوينك وحا يقوم مرتيو يقول قيب كليسة ذهب فارح محمد قراء فرشحن كعلانka qorto oo buugaag ka soo saarta sidoo kalena bara qurxinta dumarka gabdhaha u tababarta sidoo kale barnaamijka inta aynu ku guda jirno waxa daawan doontaan warbixin aynu ka soo diyaarinay dahabo oo aynu ku booqanay ayaad ku daawan doontaan barnaamijka waxa idin la socotinaysaa anigoo filsan duceysana waxaan u mahadnaqayaa Yuusuf Cubayd oo dhanka farsamada iyo kaamirada iga caawinaya inta barnaamijka aynu ku guda jirno dahabo studio Muqdisho Cable nagu soo booqatay ayaan rabaa ugu horreyn inaan ku soo dhaweeyo barnaamijka dahabo soo dhaweeyo waayahay marka la soo dhawo waana kaaga mahadcelinaynaa dabcan ka qaybgalkaaga barnaamijka ugu horeyn marka laga soo tago in gabdhaha aad barto xirfadda qurxinta dumarka sidoo kalena xirfad kale oo soo saarista cilaanka ama farshaxanka aad samayso marka laga soo tago oo laga soo tago intaasba dahabo waa qof ceenkeeya haddii aad si kooban isku barto bulshada daawanaysa barnaamijka waayahay dabcan dahabo waa hooyo sidoo kalena intanoo howl ahba way qabataa waayahay waa kugu dhiirigelinaynaa taas markii laga soo tago maxaa kugu dhaliyey in aad gabdhaha dabcan u tababarto xirfadan qurxinta dumarka wallaahi waxaa arkay gabdho badan oo baahi u qabaan gabdho badan ay soo xiriireen marka saas awgeed gabdhaha markaan arkay hamiga ay u leeyihiin inay bartaan xirfadahaas saas ugu dhalisay inaan wax u soo saaro aan dhinacaas ka caawiyo inta awoodo waan gartay ka hor inta adigu aadan noqon bare isaga wax bara oo gabdhihii wax bara xagee ka soo bilowday adiga ma intaad baratay oo meel u gashay oo waqti ku soo qaadatay ma wax kugu dhashay oo adiga ku fududaaba halkee ka soo bilowday aan markii hore aniga iska koobiyin jiray meelaha marka buugaag ku arko kaleeto waxyaabaas dhan marka gabdhaha dariskeena ay xaafadaha ku baraatay jiray kadib waxay ii noqotay xirfad aniga oo ku soo shaqeeyay oo marka ugu dambeysana aan meel shaqaale ugu noqday kadib waxaa sii go'aansaday in aan gabdhihi ugu faa'iideeyo saa anigu u jeclaa marka arkay gabdho u jecel aad iyo waxyaabahaas marka adigu aad baratay marna aad ku shaqeyn jirtay maxay ka koobnaayeen aniga inta badan xinaha ku shaqeyn jiray iyo make-upka ilaanka iyo make-upka waayahay ka waran gabdhaha aad wax bartay ma jiraan gabdho ilaa iyo hadda waxbarashadii dhamaystay ee wax qabsaday way jiraan sida oo Ayuuna binti Amiir taas hadda meel furatay oo ku shaqeysato gabdho badan xaafadaha ugu shaqeystaan oo u suurtagelinaysa inay meel furtaan way jiraan waayahay hawshan goormaad soo bilowday dahabo waxaa bilaabay 2015 bishii saddexaad waan gartay ilaa iyo haddana waad wadaa waxaa jeclaa inaan xarun weyn u sii furo aad iyo aad waa rajaynaynaa inaad ku guulaysato waxaan rabaa markaan daawadayaasha inaynu aadno warbixin dabcan oo xaruntaada aynu kusoo booqanay oonu kasoo diyaarinay ayaan rabnaa inay nala daawadaan daawadayaasha dibna waa isugu soo laaban doonaa soo bandhigidda kumanaan hal abuur oo kala gedisan waxay astaan u tahay horumarka caasimadda magaalada Muqdisho waxaa si joogto ah loogu soo bandhigaa noocyo kala duwan oo hal abuur ah kuwaas oo ay maskaxdooda tuujiyeen dhalinyaro wax ka baratay caasimadda tani waa macallin Dahabo Faarax Maxamed
waxa ay muddo dheer ka shaqaynaysaa nashqadaha kala duwan ee xinnaha ama cilaanka dumarka. dahabo sidoo kale waxa ay soo saartay buugaag ay ku nashqadaysay noocyo kala duwan oo cilaan ah si ay uga faa'iidaystaan gabdhaha Soomaaliyeed ee jecel in ay xirfad ka dhigtaan xinnaha. tan iyo yaraanteedii waxay aad u jecleed cilaanka, waxaana ay lahayd riyo weyn oo ku aadan in ay heer ka gaadho xirfaddan. runaantii ani aad u jeclaa marka horeeto guriga ku baraatikay jiray xaafadaha deriska gabdhaha deriskeena waxaas dhan ku baraatikay jiray kadib waxay noqotay xirfad aan ku shaqeeyay oo meelo badan ugu soo shaqeeyay kabacdi waxaa go'aansaday inaan gabdhaha ugu faa'iideeyo maadaama ay jecel yihiin waxbarashadan gabdho badan oo baahi u qaban aan arkay. halkan waa iskuul ay baraka tahay maclimad Dahabo Faarax. subax walba waxa ay duruusiisaa arday badan oo doonaya in ay bartaan nashqadaha cilaanka. iskuulka lagu barto cilaanka waxa uu shaqaynayaa muddo dheer, waxaana ka aflaxay arday badan oo baratay nashqadaha cusub ee cilaanka. maclimad Dahabo maxay bartaa ardayda? waxaa baraa inta badan cilaan saarka aad u jecel yihiin marmar oo usoo dhexgeliyaa koorso oo make up-ka ah. gabdho badan waxaa jira oo YouTube channel-ka ku xiran Dahabo Beauty hina kuwaasna fiidiyoyaal u geliyaa oo make up-ka iyo cilaanka saas oo kale iyo sida isqurxinta oo kaleeto. waxaa jira arday badan oo ay soo saartay Dahabo kuwaas oo maanta ku shaqaysta, waxaana ardaydaas ka mid ah Ayuushi binti Amiir. waxay la hadashay Muqdisho Cable TV. koowaad ilaahay maad iskale midda labaad macluumadeeda Dahabo ayaa garab igu siisay ayadana ugu mahadcelinaya heerkan aan taaganana madaxeeda ayaa ku gaaray. nashqadaha xinnaha ama cilaanka dumarka ee lagu qoray buugaagta Dahabo waa kuwo ku cusub Muqdisho. Dahabo waxaan weydiinay sida ay u samayso nashqadaha cilaanka ee buugaagteeda. naqshado oo maskaxdeeda waaye sababtoo waxaa arkay gabdho badan oo naqshada markay arkaan koobiyey karo laakiin maskaxdooda wax ka keeni karin. saas awgeed waxaa hindisay inaan buug qoro si ay ugu faa'iidaystaan naqshada markay arkaan ay u koobiyey karaan oo kale. walaa waqti badan may u qaadato qalinka haddaa soo qabto warqadan dul saaro naqshada ugu soo dhacdaa. sidoo kale markaa qof u saarayo kalena hore ay iga soo dhacdaan. wax la xifdisan yahay ma ahan cilaanka waxaa waaye qofka markaa qabid maskaxdaada ku soo dhacay. waa hagaag intaas aan uga soo laabano warbixintaasi. Dahabo waxaynu booqanay meelo kala duwan oo ay ka mid tahay meelo dabcan su-aashii dhawaanaan ku weydiinayay ee gabdhaha wax qabsaday adigu aad bartay ah gabdho ka mida, sidoo kale kuwo kale oo adigu aad meel wax ku barto, iyo sidoo kale adigoo howlihii farshaxankaba ku mashquulsan. sidee isugu keentaa maadaama bilowgii wareysigana aad ii sheegtay inaad tahay hooyo, sidee kugu suurta gashaa aad iskugu keentaa in aad gabdho wax barto farshaxanka cilaanka samayso reerna kaa dambeeya, sidee isugu keentaa? والله wax walba waqtigaas oo adi u beeqansatid waaye marka ani marka waqtigii waa i kooban yahay wax walba saacad walba waxay leedahay marka waqtiga ay wax baraa saacad gooni waaye waqtiga guriga aad joogto saacad gooni waaye waa isku keenaa wax walba isku taxalujisay inaa sameyn kartid ma sameyn kartaa. waxyaabo caqabadaha ma kusoo wajahaan mararka qaar in xiisadaad bixisid meel aado iyo guriga hawshiisii iyo waxyaabo sidaas oo kale ma ku kulmaan mararka qaar? ilaa wax walba la qabanayo caqabado leeyihiin Soomaaliland. waan gartay marka caqabado way jiraan inaa ardayda ay sugeysaan barnaamij kale qabsado kaleeto marmar fasaxo kale way jirtaa xitaa. waan gartay marmar inaa usoo dhaqsado inaa waqtiga soo dib dhaco laakiin inta badan tiimkooda waa ilaaliyaan. waqtiga waa ilaalisaa. waa hagaag farshaxanka maxaa ku dooratay inaad qorto cilaanka? والله farshaxanka wax loo baahan yahay waa maho gabadha oo Soomaaliyeed jecesha inay isku qurxiso maanta daameel aadaysid inaa isku qurxin kartid waa wax muhiim ah. marka baahi gabar walba ay qabto oo maxay ay jeceshahan inay sameyso. waan gartay saas ay ugu kaliftay. marka waxaa jira buugaag kala duwan oo badan oo adigu aad qortay oo cilaanka ah. waxyaabahaas aad qorayso ee aad sawirayso xagee ka keentaa maskaxiyanba mise sidee kugu suurta gashaa? والله maskaxdeeda waa inta badan markaa warqad soo qaadatid meel saartid
oo qalinkan aan dul saaro naqshada ay ugu soo dhacdo naqshadaas markaan qoro wax qurux badan ay noqdaa waan gartay waqtiga kaaga baxa intii la egyahay markaa waqti oo saas u dheer ma iga baxo buugga dhan waxaa laga yaabaa inaan ku qoro adiga 25 beri 20 beri 15 beri marmarka qaar waan gartay dhowr iyo 20 maalin waa hagaag yaa kaa caawiya arrintan oo maxay ahayd markaad soo bilaabisay ilaa iyo hadeertaan cid garab kugu siisa ee aad is leedahay way ku caawisaa ma jirtaa wallaahi hooyadii macaan ay caawisa mar walba way dhiirigelisaa mar walba waa sameyn kartaa ay dhahdaa wax soo sameynaa waa sameyn kartaa samey marka maasha allah hooyadii aad ii caawiso aad iyo aad maadaama hadda lagu jiro bil ramadaan weli ku socotaa ardaydii aada waxbarisay iyo waxbarashadii muu socotaa gabdhaha waa wadaa weli inkastoo qaar ay fasax qaateen dhaheen isku keeni karno howsha guriga ama ramadaanka afur diyaarin iyo waxaas iyo shaqada isku keeni karno ila baraatika laga rabaa mugtahay marka qaar badan ay fasax qaateen qaarna jaanis u haya way imaadaan waqtiga hore subax ka waran fursadaha ciida maadaama ay tahay xiliyada ugu badan ee dadka yaqaana sida cilaanka oo kale ay aada uga faa'iideystaan maadaama dadkii oo dhan ay rabaan inay isqurxiyaan oo fursadaha ugu badan ee dadku ay kaga faa'iideystaan ay ka mid tahay fursadaha ciida ka waran iyo gabdhaha hadda xilligan aada waxbaraysaan gabdho badanaa ka faa'iideysanaa fursadahan bishaan insha allah saa rajeynayo gabdho badanaa jira oo si fiican wax u barteen oo haddana inay wax saaraan jecel xataa ku ham weyn inay iidaan dad badan ugu faa'iideeyaan ayakan waan gartay qaybaha dambe ee barnaamijka anagoo isla marayna mar dhowna gabagabeyn doona waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dahabo qofka farshaxanka barta ee sida cilaanka oo kale ama qurxinta sida uu noloshiisa ugu maareyn karo ma tahay wax meel uga soo bixi kara ee uu ku tashan karo ama uu dad wax ku tari karo si fiican oo ku tari karaa qofka haddii oo asiga oo ismaareeyo oo maxay inuu wax meel dhigto inuu waalidkiisa wax u qabto inuu asiga nafsadiisa wax u qabto haddii oo asiga ku hami weeyahay waxyaabo badanaa lagu maareyn karaa waan gartay farshaxankana wax kaa haraayo ma aha wax meel walba oo tegtid aa ku samaysanaysid waa aqoontaada waan gartay ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama howlo badan aad isku hayso sidoo kalena hooye aad tahay oo tusaale dadka qaar aada u noqon karto ugu dambeyn maxaa uga tegi lahayd gabdhaha daawanaya barnaamijka iyo maadaama barnaamijkii haweenka yahay maxaad baaqa ama aad kaga tegi lahayd wallaahi waxaa dhihi lahaa gabar walba wax way qabsan kartaa ayadoo hooyo ayadoo reer leh ayadoo meel degan wax walba qaban kartaa wax walbana sidaa aad iskaga dhaadhacsiisid waayo marka waxaa jeclaan lahaa inay mar walba ay qabsadaan xirfadahan ay bartaan waa wax aysa ka maarin mar walba hadday gabar dhasho kaleeto way u baahan tahay cilaan meegab wax walba u baahan tahay soomahan aad iyo marka inay ka faa'iideystaan aa kula dardaarmi lahaa ayaad kula dardaarmaysaa waayahay aadaa umahadsan tahay waana kuu mahad celinayaa ka qaybgalkaaga barnaamijka maantana intaas ayaa dabcan kusoo afmeeri doonaa barnaamijka waa mahadsan tahay dahabo ka qaybgalkaaga barnaamijka waa hagaag daawadayaal intaas ayaa kusoo afmeerayaa toddobaadkan barnaamijka qoyska iyo haweenka oo aad ka daawanayseen muqdisho cable t v dahabo faarax maxamed oo ah qoraa farshaxanka cilaanka sidoo kalena gabdhaha u tababarta qurxinta dumarka ayaa igala qayb gashay istuudiyaheena dhexe ee magaalada muqdisho ayaana barnaamijku si toosan kaga imaanaya sidoo kale qaybaha dhexe waxaad ku daawateen warbixin aynu ku booqanay oo aynu kasoo diyaarinay xarumaha ay wax ku barto ardayda dahaba gabagabada ayaan joognaa markan yuusuf cubeyd oo dhanka farsamadii kaamirada iga caawiyay barnaamijkana waa u mahadnaqayaa aniguna filsan duceysan ayaan haa idinla socodsiinaysay barnaamijka intaan ku kulmi doono toddobaad dambe iyo barnaamijkan lacayn waxaan kaga tagayaa qasiida nebi amaana sidaas iyo ramadaan kariim
ilabtiyo waqti duubano dabinada ibliis laga daahayo dadku taagayee ilabtiyo waqti duubano dabinada ibliis laga daahayo dadku taagayee hago ibadiya dalkaba dabalsamo dada no hade daimo allo ibkayaga hago ibadiya dalkaba dabalsamo dada no hade والله قلبي داعدو سمكات البدا على تغسيو ادق وقورين لو اجيب دعاء دايما والله قلبي داعدو سمكات البدا على تغسيو ادق وقورين لو اجيب دعاء دياري اللو نغدو دغلكيو عرلدا لو دوجيو دالك نو نمعي بقري دياري اللو نغدو دغلكيو عرلدا لو دوجيو دالك نو نمعي دايما والله بداعدو سمكات البدا على تغسيو ابدا قبوري لو اجيب دعاء بودك ماذا خيرات كدير رضي الله عيون طولان اسلام ديركي يا هو بودك ماذا خيرات كدير رضي الله عيون طولان اسلام ديركي يا هو دايما والله قلبي داعدو سمكات البدا على تغسيو دقدق قبوري لو اجيب دعاء دمان داوامين وحبادي كدحين دوغي حقي وديتنو أدكين دكيا دمان داوامين بدي كدحين دوغي حقي وديتنو أدكين دايما والله قلبي داعدو سمكات البدا على تغسيو ادق وقوري لو اجيب دعاء دايما والله قلبي داعدو سمكات البدا على تغسيو ادق وقوري لو اجيب دعاء